في الأبكات وقدنا الشيخ كوري جنا إن شاء الله تعالى. كم بالله استعماله سكوان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما جميعا، وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ugu horeyn jaamacadda iyo maamulkeeda iyo magaalada iyo dadkeedaba waa u mahad celinaya. intaa kadib darsiga maanta loo qoondeeyo wuxuu ku saabsan yahay ahmiyat اddiin wa xaajat اlbashariyati ilayh. diinta iyo kaalinta ay nolosha ugu jirto ama mudnaanta diinta iyo bani aadamku sida uu ugu baahan yahay. aadanuhu waxa hubaala diin la'aan noloshu inay kadeed ku tahay, laakiin maanta wadciga dunidu uu ku jiro waxaad moodaa dad badan oo diinta ka sii fogaanaya inay jiraan. كأنما وصفigii uu qur-aanku ku sheegayay markii nebigu maka joogay calayhi الsalaaةu wasalaam, famaa lahum can التadkirati mucridiin kaأnahum xumr mustanfira farat min qaswara. ilaahay baa wuxuu leeyay maxaa dhacay ay diinta uga jeesanayaan? waxaad moodaa farow diday oo libaax eryayo. farowgu waa dabardabadeedka, waa shay xooggan oo dheereeya, kaasoo libaax eryayo weliba baad moodaa buu alla ku tilmaamaya dadku markaasay diinta uga jeesteen. caalamka aynu maanta ku noolahay nimanka siyaasiyiinta ee hogaamiya waxay isku dayeen inay cadaadiyaan diinta ama diimahaba, dadka laga fogeeyo, diin laawayaashana kor loo soo qaado. yurub waa dhoweyd ilxaadka rasmiga ah ee ceeb buu ahaa. imikana shaashadu iyagay u furantoo hadla, dadka kale in shaasho ay ka hadli karaan ay helaanna waaba cidhiidhi. hadda waxaan leenahay bini aadamku nowcan maa marka maadada la eego wuu tatawuray, laakiin marka laga eego xagga akhlaaqiyaadka, caqaa'idda, cadaaladda, dhaqanka, marka laga eego weli wuu gebidhacayaa. weli ma taabanin jid quman. dulmiga badh markuu riixaba dhanka kaloo dulmiyuu uga dhacaya. waxaan leenahay waxaa xaqiiqaa inaan falaax jirin tuu nebi maxamed ku dhawaaqayay mooyaane calayhi الsalaatu wasalaam. imaamu axmed iyo bayhaqi ayaa waxay soo saarayaan xadiid axad asaxaaba laga warinayo oo ka warramaya wakhtigii jaahiliyada aanu islaamin. anigoo inan yaraan aabbahay soo raacay buu yidhi oo dabeetana suuqii dilmajaas la odhan jiray ee carabtu isugu iman jirtay anigoo marayna ayaan arkay buu yidhi nin leh yaa ayuha annaas quluu laa ilaaha ila allah tuflixu, oo dadkuna ku ururayaan, oo nin aad u qurux badan isna daba socda buu yidhi oo timaha laba meelood ka xidhay oo le innahu saabi'un kaadib, waa beenaale diintiisii ka tegay ha dhegaysanina ku leh. markaasaan idhi buu yidhi aabbakani waa kuma?
wuxuu sheegay inuu nebiga yahay calayhi salaatu wasalaam ka hore, kan dambe daba socdaana waa adeerkii buu yidhi abulahab baa la yidhaahdaa. maantaa laga soo bilaabo ilaa maanta dad diinta ka fogaynaya baa jira. laakiin waxaan leenahay waxa xaqiiqa ah aadanuhu mar kastoo uu diinta ka fogaado inuu lumo. faman ittabaca hudaaya falaa yadillu walaa yashqa waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka wanaxshuruhu yowma alqiyaamati acma. ilaahay wuxuu leeyahay ciddii hanuunkayga raacda ma dhumo oo ma ambado mana kadeedmo. aadanuhu imaa inuu waddadu ku socday ka lumo walow waddo fiicanba ha hayee, meeshii uu socday meelaan ahayn, jihaduba inay ka lunto, ama maahae jihadaba inuu isleeyahay qabe laakiin uu kadeedanyo si loo gaadho aanay jirin. haddaad diinka raacdaan baa ilaahay leeyahay labada midna idinla kulmi mayso. haddaad se ka jeesataan waman acrada can dikrii faina lahu maciishatan danka, nolol cidhiidhiya buu leeyahay baa ilaahay yidhi. nolol cidhiidhiya. kitaabun anzalnaahu ilayka litukhrija annaas min adulumaati ila annuur. waxaanan u soo dejiyey diintan baa ilaahay leeyahay inaan mugdiga laydinka saaro oo iftiinka laydi geeyo. mawduuceenna waxaynu isku dayi doonnaa dhowr weji inaynu u dhigno. kow, waxaynu ka warrami doonnaa qofka maxay diintu ahmiyadda u leedahay ka fardin, as a person, qof ahaan. ilaahay markuu qofka diinka haysta rabbi soo dejiyey iyo kaan haysanin markuu isdhinac dhigay, rabbi wuxuu ku tilmaamay awaman kaana maytan faaxiyaynaah wajacalnaa lahu nuuran yamshi bihi fi nnaas kaman mahaluhu fi ulumaati laysa bikhaarijin minha kadalika zuyina lilkaafiriina ma kaanuu yacmaluun. ilahay wuxuu leeyahy awaman kaana mayitan aw maytan, ninka wax dhintay ah, qofka dhintay ee aanu noolaynay baa ilaahay yidhi. waxaa lagu qiyaasayaa qofku markuu diin la'aanta yahay kalmayiti inuu yahay, sidii qof dhintay. kaa dhintay aanu noolaynay oo aanu siinay if uu dadka ku dhex socdo, miyuu la mid yahay baa ilaahay leeyahay ku guuraynaya meel gudcura. ka gudcurka socdiya kaasi miyay siman yihin oo weliba gudcurkaa marnaba aan ka bixi karin. kadalika zuyina lilkaafiriina maa kaanuu yacmaluun. saasaase loogu qurxiyey baa ilaahay leeyahay kuwa gaaleed waxay camal samaynayaan way isla quman yihin. ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu, ilaahay wuxuu leeyahay kuwa yidhaahdaa allah noo rabbiya ee dabeetana eraygaasi ku qumanaada waxa uu sheegayo, kuwaasi nolosha intii tagtay muruga kama hayso, inta soo socotana cabsiyi kama hayso. qofka bini aadamkaa labadaa hadduu ka nabad galo wuxuu ku nooliyey nolol satisfaction, nolol fiican, nolol xasiloon, nolol mutma'ina. hadduu qofku ka nabad galo tiraanyada horiyo wixii uu soo mariya taariikh madow uu ku ciilqabo, ciilqabka hadduu ka magan galo, markaa uu ka magan galo nolosha soo socota iyo cabsideeda iyo warwarkeeda, labadaa midna haddaanay jirin qofka bini aadamka xaala mutma'ina buu ku nooliyey. diintu halkay bini aadamka ugu jirto, taarikhyahanada dunidu markay ka warramayaan ama qolada archeologigu waxay tilmaamaan aadanaha taariikhdiisoo dhan inta la hayo lama hayo mujtamac diinlaawo ahaan jiray. mujtamac kasta waxbuu caabudi jiray. walidalik ayuu blutark taarikhyahankaasaa wuxuu tilmaamayaa dunida waa la arkay buu yidhi magaalooyin aan qusuur iyo daaro waaweyn lahayn, dhul aan masaanic iyo lahayn, xusuun lagu ilaaliyo, qalcada lahayn, laakiin fi taariikh lama haya buu yidhi magaalo bilaa macbada. meel wax lagu caabudo magaalo aan lahayni ma jirto. axad almulxidiin almucaasiriin ayaa wuxuu qoray buug uu ku tilmaamayo
gene of worship baan raadinaynaa buu leeyay malaa geneticska qofka bini aadamka geneskiisa malaa mid baa cibaadada ku saabsan buu leeyay yani sida bini aadamku ugu dhegan yahay inuu wax caabudaa waxa ay tilmaamaysaa buu leeyay masaladu DNA-ga inaynu ka dhex baadhno oo haddii la baadho malaa gene cibaadada ku saabsan inaynu heli karnaabay u muuqataa buu leeyay siduu bini aadamku ugu dhegan yahay masaladan ay ahmiyaday leedahay waxaad sawiri kartaa haddaynu xagga kale iska taagano nidhaahna marka la diin beelo maxaa dhaca soomaalidu waxay idhaahdaan calaf yar iyo ciidan yarba marka la waayaaba la qabaa qofku markuu nicmada ku dhex jiro uma muuqato bini aadamka haddaad tidhaama nicmaysantay qof walba inta ka maqan baa nimco la'ah imika intiinani hor fadhiya waxaan rajaynaya inaad wada caafimaad qabtaan laakiin saaka kuma is idhi wallaahi nicmaad haysaa waad caafimaad qabtaa maad xasuusan waad kacday unoo de sidii loo ordi jiray umaad u oran laakiin inta dhakhtarka joogto haddii loo tago iyaga waxay u muuqan lahay adduun nicmadiiba inuu caafimaad qabun yahay mani unbaa intuu iska soo kacay saaka caafimaad qab ku socdabaa iyaga warwarkoodu yahay marka aadanuhu inta badan nicmada markuu hayo aad uma dareemo dad yar baa dareema bal haddaba aan diinta xaggan dhigno oo diin la-aanta sifayno qofku markuu diinka beela maxaa dhaca jariidad la yidhaaho rosal yusuf waa liberalismka jaraa'idkan faafin jira ee masaarida majalla weeyaan rosal yusuf la yidhaahdo ayaa maqaal qortay mid wariyaasheeda ka tirsan ayaa waa hore tegay scandinavian waddankan sweden la yidhaahduu tegey dabeetana waddanka sweden waa waddannada ugu barwaaqaysan marka dunida barwaaqooyinkan la sheego la eego waayo waa waddan dowladdiisu barjadka ugu badan ama wasaaradda ugu lacagta badan leh dowladdu waa wasaaradda ashuun ilijtimaaciya ku saabsan danta bulshada wasaaradda ka shaqaysa wasaaradda labaad ee ku lacag xigta waa wasaaradda waxbarashada halka dunida kale laga yaabo wasaaradda difaaca iyo amniga iyo kuwaas inay yihiin kuwa u lacag badan leh marka waa waddannadii bilaabay walfeerada tan iyo caafimaadkan bilaashka iyo waxaan tirada badan leh bini aadamka la siiyo qof walba waddanka degan inuu guura helo wariyihii intuu soo noqdo wuxuu qoray maqaal la yidhaahdo ahluljanna laysuu sucadaa buu yidhi ahlu jannuhu sheegaya waa reer suudhan ahlu janne saciidiin maaha buu yidhi dad badhaadhay ma aha waayo tusaalayaal aan bixiyo dunida reer galbeedka ee diinla-aantu ku badatay waxaa aad u badan isdilka suicide qofku inuu isagu naftiisa gooyo dadka isdila markaasi si aan loo boorin arrintaasi oo aanay mujtamacu u ogaanin tacsidooda laguma qoro jaraa'idka waaweyn waddannada ka soo baxa haddaad bayjadka u dambeeyo eegto 3-4-5 bayj oo dambe waxaa ku qoran tacsi dadkii dhintay dadkoodu tacsiyeynayeen iyaga laguma daro liiskaa si aan dadka loo xasuusinin isdilkiiyo waxa dowladu waxay u sameeyeen hotlines qofku hadduu warwarkaasi ku dhaco bal waa intaasoo la badbaadin karaayo hotlinkaa soo garaac mar kastood garaacda waa lagaa qabanaya marka khubaro ama psychology ama culamaauddiin ama kanaba kaa qabanaya waxa la isku kaa dayaya in lagu yidhaahdo bar horta u yaro kaadi agaadaa iskale wakhti yarna sii aynu yaro wada hadallo oo aad wax ku weydiinno dowlada ka mida waxaa batay isdilkaa dabeetana waxay isweydiiyeen cilmi baadhistee loo samayn karaa dadkan inuguma filla dhowrkan qof ayna la soo hadlaayeen sidee baynu cilmi baadhistu samaynaa si looga hortago isdilka waayo mushkilad haddaad rabto inaad xallisho waa inaad gunteeda si fiican u ogaataa baadha waxay dowladdu qaadatay inquiry in la sameeyo dadka wax la weydiiyo siday u dhici kartaa waxay idhaahdeen si qof kastoo isdila baynu u ogaan karno ha loo sameeyo dowladdu meel ay leedahay oo dadku isku dilaan dowladda markaa waxay samaysay manxar bashariya
halka adhiga lagu qalaa taqaanin soo maaha meel dadka lagu qalaa loo sameeyey wixii dhimanayaa meel ay yimaadaan manxarkaa bashariga aad imanayso laba waxba waad ka helaysaa waxaad ka helaysaa dhakhaatiir iyo aqoon-yahano kuu sheega sida fudud ee adigu aad ugu dhiman karto sida ugu fudud ee nafta lagaaga jari karaa dad sidaa yeesho dad saa yeesho dad saa yeesho kaalmadii dawladdana waad helaysaa nafka goynta ee nafta lagaa gooyaa dhanka kale waxaa la rabaa inquiry in lagaa qaado in lagu waraysto bal sababaa kuu kalifaya isdilka kan in lagaa joojin karo in la ogaado in lagu daweyn karo in la ogaado dhanka kalena doorashada adaa leh laakiin macluumaadkaaga in la helo mashaakilka ijtimaaciga dadkii aad ka tegaysay bangiyadaad wax ka amaahatay dhibaatooyinka dhaqaale waxaana in lagaala xisaabtamo sidii lagaaga reebi lahaa idan waa waraysi iyo fududayn dil dawladdu markay meeshii samaysay qoraaga buugga qoray wuxuu leeyahay dadkii baaba kuyuga wada qabsaday kuyugii baa dheeraaday dadkii rabay inay isdilaan ayaa tiro batay dabeetana baarlamaankii waddankaa fadhiistay oo yidhi waa mamnuuc dawladdu waa inay xidhaa meesha tan waa in la joojiyaa saasha isweydiinaysa waxaa weeyaan waddan barwaaqaysan oo dadka jooga dhaqaalo haystaan oo problemsku yar yihiin maxaa keenay inay manxar bashariya intay samaystaan dadku uu kuyu u galo waxaa keenay khawaa ruuxiya naftu bini aadamku materialka dabadda ka xiga ma satisfy gareeya waxa satisfy gareeya inner bartkiisa waxa ku jira qofku waxa uu rumaysan yahay qalbigiisa iyo maskaxdiisa caqiidadu haysto nolosha siduu u arko wanaagga wuxuu u yaqaano waxa uu mutma'inka ku noqon karo kaas baa ayaa satisfactionkiisa keena dawladda way xidhay su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan maxaa dadkii jeclaysiiyey inay isdilaan maraykanka buwaagta ka soo baxda one of the bestseller bookska mid ka midaba wuxuu noqday ee buug ka warramaya sida ugu fudud aad isu dili karto su-aasha isweydiinta le waxa weeyaan bini aadamku goormuu u wada baahday sida ugu fudud ee uu isu dili karo inuu ogaado ilaa iyo buuggu uu ka noqdo bestseller book buugga ugu fiican in la iibsado ilaa uu ka noqon karo limaada yaxtaaja annaas in la isdilo maxay dadku ugu baahdeen dadka waaweyn waxaa laga yaaba inaad tidhahda mashaakil baa ka hor yimi kan baa ka hor yimi anagana muraahiqiinta teenagers adolescents dhallinyarada da'yarta ah ee soo baaluqday ama da'daasi joogta dhowr iyo 10 jirka ah waxay dhahdaan maraykan waa ixsaa'iyaad qadiima weliba kuwa kale 25 milyan oo da'yartaasaa ku nool nus milyuun ka mida 500,000 baa isku dayay inay istilaan 6,000 baanay u suurto gashay inay sanad kasta kaws kaga siiso waaba iminkaaba noloshu u bilaabantay qofka weyni noloshu wuu ka daalay iyo dhibtaa ku badatay iyo waxbaan garanay kan hadda ay u bedbedleeda soo bilaabayba iminka waxa ku kalifay inuu isdilaa waa maxay waxay dhahdaan da'yarta u dhaxaysa 15 jir ilaa 19 jir geeridooda saddexda waxa ay u dhintaan waxa ka mida isdilka waxay dhahdaan da'yartaasi dilka dhimashadooda ugu badani waa 3 shay shil gaadhi iyo isdil iyabay ku tilmaamaan xawaadis alijraam homicide gaangiskan yaryar isqaarajinaya iyagu waa 3 sababood ee ugu tirada badan lee da'yartooda laysa isweydiinta waxaa le markaa haddaynu idhi kuwaasi waa 15 jir ilaa 19 jir 2016kii ixsaa'iyaad kale ay sameeyeen waxay ku tilmaamayeen 15 jir ilaa 29 jir waaba shayga labaad ee isdulka ugu badan ee ugu dhintaan
walidalik hayuu qoraaga la yidhahdo colin wilson baa wuxuu leeyahy isagoo sifaynaya magaalada la yidhahdo new york ayuu yidhi waa qataa'un jamiil lixaala min atacaasa buu yidhi waa dabool qurux badan oo xaalo hooga qarinaya buu leeyahy waa meel lagu baaba'ay buu leeyahy laakiin fayskooda qurxistay wejiyada dadka iyo lacagta iyo daaraha iyo dabaqyada iyo boorsada dunida ugu qaalisan iyo wall street iyo waxa kan markaad aragto waxaad leedahay halkan baa dunida kala haysa laakiin wuxuu leeyahay dadka iyo siday u nool yihiin iyo waxay rumaysan yihiin iyo itmiinaankooda iyo muctaqadkooda markaad eegto waa very low aad buu u hooseeya markaasuu wuxuu ku tilmaamayaa waa qitaa'un jamiil buu yidhi waa dabool qurux badan oo laakiin muxuu ku daboolayay xaala min atacaasa xaalad kadeeda dee ilaahay baa qur-aanka qaar buu wuxuu ku tilmaamayaa falaa tucjibka amwaaluhum walaa awlaaduhum inama yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati dunya watasaqa anfusuhum wahum kaafiruun hala yaabin xoolaha iyo carruurta ay haystaane ilaahay baaba doonaya inuu kuwa ku cadaabo xoolahan iyo carruurtaa lagu cadaabaya waxaad ka garan kartaa hazaadka iqtisaadigii markay dunida ka dhaceen dhaqaala burburadii waaweynaaye dunida soo maray matala 2008 dhaqaala burbur baa dunida ka dhacay innagu dee meel reer galbeedka ama aqoon-yahan inaga wada hadlayno wuxuu ka warramay dhaqaala burburkii dunida ka dhacay iyo mashaakilku abuuraya waxa xaggayga kaba dhicin baan ku yidhi waa xaggiina un markaasuu yidhi maxaa dhacay in america only ayaa intaasoo kun oo baan kacay buu ku yidhi masaan ku yidhi anagu bangi kacba ma lihin marka horeba bangiba kuma oleysa ama uma kicin neefaan ayaanu iibin jirno welina waa iibinaa waxba haba yaraata naga khasaarayba dunida kama jiraan waxay dhahdaan dhaqaala burburkaasi markuu ku dhacay mujtamaca dadkii wax haystay in badanoo ka midi inna way waalatay inna way isdishay yacni hazadii dhacday markii loo adkaysan kari waayey badhka dadna waa isla hadleen oo way isdileen dadka badhna way geeriyoodeen dhan labaadaan ka eegno in yurub afartii qof ee meel marayaba qof baa isticmaala muhada'aadka ixsaa'iyaadkooda wuxuu sheegayaa afar qof kastoo yurubiyana mid ka mida inuu isticmaalo maxay dawooyinka kan dhakhaatiirtu ay qoraan ee nafta xasiliya in la dejiyo qofka halka dadka diinta haysta muxuu nebigu tilmaamay cajaban liamri lmu'min ina amruhu kulluhu lahu khayr qofka mu'minka arrinkiisu yaab buu leeyahay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam arrinkiisoo dhabi khayr buu yihi oo waayo cid kalena arrintaa ma haysata buu nebigu leeyahay walaysa dalika liaxadin ila lilmu'min in asaabathu saraa shakar fakana khayran lah wain asaabathu daraa sabr fakana khayran lah hadday nimca heshana ma kibro ma qooqe ee ilaahay buu u mahadnaqaa haddii dhibi haleeshana wuu sabraa askartii maraykanka ee soomaaliya markii dhibtu ka dhacday timi qaybaa islaamay marka la weydiiye maxaa ku islaamteen waxa ugu weyn ay sheegaan waa maxay dad baaba'ay oo kadeed ku dhacay oo dhaqaala burbur oo aan dowlad haysan oo isdilaya oo nafta haysato haddana qosolayaanu aragnay bay dhahay yacni iyagu qosolkaasi cajiib la'ah dadkani in qosolba ka soo baxa ma ahayn bay leeyihin there's something markaa qofkani waxan uu waayay oo dhan uu ku ilaabay isagoo nabad haysan oo dowlad haysan oo wax cuna haysan oo waxba haysan ayaanu haddana murugiya warwar ka muuqan bay leeyihin markaa waxba haystaa waxaan dadku haysanin buu haystaa weeyaan soomaaliya waxaan rajaynayaa wixii ka dhacay hadduu waddan iyadoo innagaba dacfi iimaani uu sababay waxaan inaga dhaco haddana inta iimaankeennu ku baaqi ahay ayaa waxay sababtay inaynu dad jiro oo weli nool noqonno inagoo waxba haysan dowlad iyo dal iyo waxba toonayadaana jirin haddana dad jira inaynu noqonno caqaa'idaynu rumaysanay baa sababa bacd allahi subxaana wa tacaala
inaad ilaah rumaysantahay oo aakhiro rumaysantahay oo qadarka rumaysan tahay oo calafkaaga inaan waayanin rumaysan tahay waxaasaa keenaya inaad mutma'in noqoto walow nolosha laga yaabo qaybteeda dhaqaaliya nabadeedba in kadeed kaa haysto. waxa uu ka warramay doctor rushdi fakar nin la yidhaahdo waa geeriyooday alla naxariisto. rushdi fakar waa nin culamada muslimiinta ka mid ah علماء الفلسفة والأدب في العالم الغربي نكمدها جامعات الغربية سويسرلاند وفرانسيسكا جامعات كوغوا وين بلا وضع بروفيسور كاحجري وانا قراء عام ولا يقامين بقول يكون بوك بدن بولي وقاركود موسوعاتي بسيكولوجيين خبير كوغو بلانا قري احنا يقانين الفلسفة الوضعية افرفوليا مو بسيط فيلسوفي وانا ما الغربية كورجي كده بيان كميدا ahna kuway u soo sharaxeen Nobel Prize la siiyo ayaa wuxuu leeyahay buug yar oo risaalo kooban oo nin wariyay uu waraysi ka qaadayo. risaaladiisa waxa la yiraahdaa nihaayatu al-amaaliqa aw amaaliqatu nihaaya. wuxuu ka warramayaa filosofiyadii ugu dambeeyay Yurub ugu waaweynaa لكن marka kan isagoo khabiir filosofa falsafa ku takhasusay markan kama warramayo falsafadoodii wuxuu ka warramayaa noloshoodu siday ku gabagabowday. isku dayana risaalada raadisaan wuxuu ka warramayaa noloshoodu inay ku gabagabowday mid isdila mid isasumeeya mid intaasoo goordil isku dayo isha iska soo riday halka xabad iskaga dhuftay halka run ka soo boodo wali uu noolaa kaasoo haddana ku celiyay. marka wuxuu ka warramayaa badhinay waasheen badhnay isdileen badhnay isasumeeyeen noocaasi inay u dhinteen intoodii badnay. laakiin baabkaa laynoogama warramo ee waxaa laynooga warramaa falsafaday dunida ku soo kordhiyeen. yani falsafaadka iyo raggan marka laga warramayo noloshooda gaarka ah way yartay intaad ogaan kartaa haddana adigu qof baaxito wax baadhaya لكن waxa laga yaabaa in lagaaga warramo in dunida aqoontu soo kordhiyay ama wixii uu dooda ka sameeyay. wuxuu ka warramay qiso aad u cajiib oo ah filosofkii falsafa alwujuudiyya existentialist meel la yidhaahdo falsafa alwujuudiyya filosofkii ugu weynaa waqti dhaweyn weeyaan maaha waqti hore waa gisgaard markuu haystay فرانسيسكا مدحوينها وها ayaa maalin soo galay gurigiisii islaantiisii oo faraxsan buu arkay kow buu kaga siiyey islaantii oo faraxsan markuu arkay buu kow kaga siiyey dabeetana booliisku wacay oo wuxuu yidhi waxayna la hadlayay filosofer hebel waxaan dilay xaaskaygii kaalayo shaqadiina qabsada. waa la yaabay booliiskii ilaa janankii u sarreeyaa lala hadlay waxaa la leeyahay filosofer hebel baa nala soo hadla caynkaa sheegaya meeshii bay yimaadeen waa runtii islaantii dhiiggaa ka shumayo waa kow isagiina waa joogaa mididaasaa ku dilay buu leeyay idinku shaqadiinii qabsada. waa la isweydiiyey maxaa dhacay see wuxu jira isagu waa falsafa alwujuudiyya. falsafa alwujuudiyya waxay rumaysan tahay noloshu inay cabaftay noloshu waa dheeldheel kollayba waad dhimanaysaa wax ka dambeeyaana ma jiraan. marka waxa fiican bay yidhaahdaan dagaal aad garanaysa gebagabadiisa lama galo. haddaad dee dagaal gasho laakiin aad ogtahay in ilowbaylow lagu soo jebinayo dee adoo baqayo baad gelayso maaha. dagaal aad og tahay buu leeyahay gebagabadiisa lama galo. filosofku muxuu inoo sheegaya marka wuxuu leeyahay nolosha gebigeeduba waa cayaaya waad dhalanaysaa waad boodboodaysaa dabeetana waad dhimanaysaa waintaha alamr. malaa waxa fiican buu yidhi markaa maalintaad ugu farax badantay de inaad ka baxdo. islaantoo faraxsan umaan arko waxaan siri buu yidhi de kolle way dhimanay maantaaba la qaatay malaa maanta akaata iskiisu bay yidhahdaan inuu madaxweynaha gaadho gisgaadh waa maalin dhaweyd uu dhintay odaygii baarlamaanka yurub isku darkeedii dastuurkii loo dejinayay waa nimankii maamulayay weli maalin dhaweyd uu geeriyooday ilaa bay yidhaahdaan uu gisgaadh yidhaahdo caarun calaa faransa an tactaqila caqlaha
ceeb bay tahay faransiis maanta inuu caqligeedii xidhe ha la geeyo musixaadka caqliga ah meelahan dadka xanuunsanaya ee madaxa ka jiran bal meelaha ha la geeyo ha la baaro ma aha France inay caqligeeda xidha waa ceebe sababtu waa maxay leeyahay waa diin la'aantu markay dhacdo qofku nolosha cabas buu arkaya inaanay qiimo lahayn buu arkaya waxay tahay baan jirin naxariista ka guurta waayu kugu naxariisanaya wuxuu leeyahay kulli ma wadaba lahayd dayma kaba iska dhimo ilaahina wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala walladina kadabu bi ayatina summan wa bukman fi dhulumat man yasha illahu yudlilhu wa man yasha yaj'alhu ala siratin mustaqim kuwa ilaahay aayaadkiisa beeniyay summan bukman baa ilaahay indhaha iyo dhagaaba walaa'i indhaha iyo dhaguwa waxa ugu weynay maxay waxbarasho keena dad labadaba beesho miinskii waxbarashadaad waayaysa si aad dunida ula contact garayn lahayd ayaa lumaysa ilaahay wuxuu ku tilmaamaya kuwa beeniyey inay yihiin kuwa labadaba beelay oo madow soconaya ilaahay ciduu doono waa lumiya waman yashaa yajcalhu cala siraatin mustaqiim aayad kale ilaahay wuxuu ku tilmaamaya aw ka dhulumaatin fii baxrin lujiyin yaghshaahu mawjun min fawqihi mawjun من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور حلم دي باي لهيت المامية سيدي مقديو بد قنت يتكتشرة وموج كلا كسر غاية ورانك كور رمي لكن 20th century baa la ogaaday badda hoose in mawjada jiraan mawjada waxa loo haysto kuwan xagga sare maraya ayay Swedish ku ogaadeen inay jiraan mawjada hoosta maraya ilaahay wuxuu leeyahay waxa la mid ah de baddana iftiinku markuu soo dhaco haddii uu jiro daruuri hoosiis bay noqotaa ifka kale baddan korkeeda mawjadahan ka kacaya reflection bay sameeyaan oo ifkii haddana badh bay celinayaan ifka inta soo hadha wavelengthskii bay u kala baxaan toddobada midba meel buu ku hadhaa meel markaad gaadho haddii nabar kugu dhaco dhiiggaaga ma arki kartid waayo casaankuma ma jiro casaankuma hadhaya ma jirayo markaad sii socdo around 200 mitr meelahaas baan rajaynaya markaad gaadho all light oo dhammi inuu dhammaanayo if baanad waxba ka arki karin uu noqon karo wax lagu arkay iskiisu bay yiraahdaan inuu madaxweynaha gaaro giska waa waxay yiraahdaan alfalsafa kullaha philosophy bini aadamku waday wali la xiqsan yahay kullaha su'aalaha bay yiraahdaan tabiiciga ee macruufka la yaqaanay jawaab raadinaysa oo maxay albaxth can alhaqiqa bayda wa ay haqiqa من أين أنا حقان كاين حقان كالصعدة محان هل كان كقبانيا وابن آدم كسؤالا نلشي سكساب سنو يسويقين سؤالها سي أول ساينس كما جوابه ساينس كأنه ماتيريال كو انت بناكو حرين كما جوابه علماء الفلسفة بيسكد ديير بحثيان ولا جواب لها وأي هي عند قرن سامجرته وأنا اللي هنا كان يحين إنه ينوشعه waxaa meesha u joogtaan xaggaasa ka timaadeen xaggaasa ku socotaan waan idin soo saaraya dib baan idin xisaabaya janniya naar mid baan idin geynaya taasaa keentay in su'aalaha kari qalbigaaga ka degaan walidalik innaga markaynu aad tidhaahdo qof kale islaamka u sharax waxa laga yaabaa inaad in badan sharaxdo islaamka iyo maxaasintiisa iyo wanaagiisa iyo dhibtaga laakiin markaad la kulanto dadka cadcad diin la'aanta ku dhacday mid islaamaad taa maxaad ku islaamtay waxa ugu badan ay sheeganayaan waa raaxatu nafsi inuu helay waan degay buu leeyahay qalbigayga xasilay balaayadii saaray bay iga guurtay buu leeyahay marka waxa kale inagu waxa laga yaabaa inaad istiraado qofka islaamka jeclaysiyo xadaaraan u lahaan jirnay albaxnimo iyo new technology inuu la fahmo markaynu wax sharxayno laakiin isagu waxa naftiisa ku jira inuu dareenkiisu isbedelaaba ah waxa ugu weyn oo rabo u arkayo
إلهينا وحليه سبحانه وتعالى فمن يريد الله أن يهديه نك إلهي دورين هنونيو يشرح صدره لا ابتساء إلهي أبلاريا يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله قفك الرب ربي إنه اللميه يجعل صدره ضيقا كأنما ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء مثال كم كلا إلهي بحين يوفرس قفك أن ربنا نهمن النبي إلهي لله تيسا سلام نمدو بلارته فهمه كبعض النمدو كسوغاننا لا تعيديونته oo jiq noqota xarajku waa markay meel wax mari waayaan noqota tusaalaha ilaahay wuxuu ku bixiyay wuxuu la mid yahay sidii mid cirka koraya imka dunidu ogaatay markii ay cirubaha samaysatay in cirka loo baxo kullama kor loo sii socdaba inay yaraato maxay oxygen dhakhaatiirtu waxay noo sheegeen hadday ka yaraato waa intan karoonuhu dadka ku laayay in neeftu kugu dhageysade neefta hadday kugu dhagtana dalaabta ku xulidiyoomaysa ودين راجسة ونفق قفلا بانت هيسنين إلهي وحولي كان دين لا أنت كسغني وحلم دي سيدي كيعك قري كأنما يصعد في السماء سيلابتي سوء اليوم يسوء أي مركز دبت شق النقونس حرج النقونس أنا عديني جو دريمس آيات لا إلهي وحولي ومن يشرك بالله منك إلهي يشرك يلا فكأنما خر من السماء ننعرك كسر دعي يقولوا لمدي cirka haddaad ka soo dhacdo dee hawada iyo gravitationka ku wadaya no control adigu isma maamushid taas waxaa dhacaysa inaad gebi dhaclayso oo controlku kaa luma qofku hadduu diin beelo controlka luma controllada koowaad ee lumana kuwa akhlaaqiga ugu horeeya kuwa akhlaaqiga baa ugu horeeya wuxuu la mid yahay mid cirka ka soo dhacay oo shimbiruhu goobayaan ama hawadu sidato meel daran ku tuurtay baa la leeyahay subxaanahu wa tacaala ayuha alaxiba dunida dadka ugu saciidsan ascad innaasi fi lxayaa waa ambiyada iyo saalixiinta alambiyaa waalsaalixuun waa dadkii helay alamnu nnafsi waalطuma'niina alqalbiya inay laab ahaan xasilaan maan ahaan degaan nolosha fahmaan الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بإلهي كوي إيمانك لغا هلي يعني إيمانك هذا كله شرك يظلم يقول قرار كله قواسان نبتقل يوسقناطي هنوصلنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قواسان النولل في عنا وليسيننا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا قرآنك وحا كعب وسب البلاران وقطع الله قفك الدين دب أفهمه إنه قف حصلون نقول يدقن إنه قف أمن نفسية قف هلي إنه نقول وحي لهي كنت الماما يا من نبي الشيخ عليه الصلاة والسلام إيمانك معانك سينو هلي قفك الله الرب إنما وغرى دونيدن إلهي معمولك عن تسكت شفته إسلام نمان الدين قاطي نبي محمد قائد كرفته عليه الصلاة والسلام sideedaba bini aadamku qalbigu ka dega haddii imika cadceed kuleyl lagu taago asxaabad garanayn waxaad u taagantay ama ciqaab lagu taago meel saxaaro oo 50 digrii maraysa 5 daqiiqo markaad taagantay baa naftaa ku qabsanaysa waa daalaysa haddii se lagu idhaahdo meeshaa ka shaqee saacaddii mar $1,000 baad leedahay dhidid dhaanaan baa kaa imanaya laakiin waxba dareemi maysa waayo $1,000 ku muuqda yani bini aadamku dareenka weeyaan waxa macaankana leh qadhaadhkana leh
waa saad wax u qiimaynayso ee ma aha oo qura jidhku wuxuu dareemayo. jidhku wax badan uu dareemayo oo dhib u adkaysan karaa hadday maskaxdu tarjumo fiican bixinayso, hadday shayga kan maskaxdaada iyo dareenkaagu tarjamo wanaagsan ay ka bixinayaan. maadaama lagu yidhi $10,000 baad dhowr saacadood ku helaysaa, tarjumada maskaxdu kuu bixinaysaa waxay tahay waar adkaysan nin baa alla kaa dhigay mar dhowaad badhaanaysaa. socankaa maaha. nolosha qofka bini aadamka oo dhammina waa saatan. janno iyo waxan markuu ka fakerayo waxa ilaahay kitaabka ugu tilmaamay dunida waxa ku soo marona wuxuu u arkaa inay tahay peanuts, waxaan qiimo badan lahayn, wuxuu u adkaysan karo, xamili karo. walidaalika nebigu wuxuu ku tilmaamaya dadka kii u dhib badnaa aakhiro jannada marka mar la geliyaa la yidhaha war weligaa dhib ma aragtay? haba sheegin buu yidhaha weligay dhib ma arag. yacni hal mar uu ku ilaabaa. kii adduunka soo necmaystayna marka naarta la dhumbiyo halkaa maruu ku ilaaba o yidhaha weligayba dhadhamo ma arag. ilaahay uu qofku ku xidhnaadaa rida nafsi keena. saa daraaddeed baa ilaahay nebi maxamed markii dhibtu ku badatay walaqad naclamu annaka yadiqu sadruka bima yaquuluun fasabbix bixamdi rabbika wakun min asaajidiin baa ilaahay. waa ognay dadkani waxay dhib kuu geysteen iyo si ay laabta kuu cidhiidhiyotay. ma rabtaa laabtaadu inay furanto, tasbiixsoo ilaahay tuka baa la yidhi. waman yattaqi illaaha yajcal lahu makhraja. idan waxaan leenahay haddaad rabto inaad diin qiimayso xagga kalena eeg. bal kuwa diin la'aanta ku dhacday waxaa soo dhahay galbeedka maalan dhibaatooyinka ugu waaweyn waxaa ka mida waxay dhahdaan child delinquency, junuux ilatfaal, dhallinyaro mujrimiin noqotay. waa dhallinyaro oo da'da qaanuunka way ka yaryihin, waana gaangis wax dila. kow buu kaaga siinayaa isla markaa qaanuunno qaban maayo. waa 16 jir, waa 15 jir, waa 17 jir. qaanuunkoodu dee markaa 18 dhaaftaabuu ku qabanaya. dan ninkani waana gaang, waa dropout, waa dragiste, waxbuu dilayaa, waxbuu boobayaa, waxbuu dhacayaa. mujtamacaadku waxay haysteen oo dhan buu khilaafayaa, qaanuunkoodao dhan buu baabi'iyey, mana hayaan si ay uga hortagaan. walidaalik markii dhallinyarada ay ku badatay khawaa qalbiga, jaamacadkan dunida ugu caansan jaamacad ka mid a waddankan la yidhaahdo Germany, jaamacaddan la yidhahdo Heidelberg University, waa Baden-Württemberg gobolka la yidhahdo jaamacadda ugu weyn. waa jaamacadka dunida cariiq ee magaca leh, bale waa jaamacadda ugu badan ay ka soo baxaan bay dhahdaan maamuladii dalka Jarmal dadkii maamuli jiray. Heidelberg University ayaa waxay yidhaahdeen dhalintii 17 jir ilaa 19 jir u dhaxaysay ee jaamacadda sanatul uula soo galaysay waa kadeedayn bay yidhaahdeen, dhib bay dareemayeen. marka waxaynu u baahannahay bay professorada yidhahdeen jaamacadda in lagu kordhiyo maadad la yidhaahdo maadatu sacaada, koors in lagu daro ah koorska sacaadada la yidhaahdo. gobolka khubaradiisii 18 ka mida baa loo saaray inay dejiyaan maadad dhallinyarada loo dhigo oo u sharxaysa bal sacaadada iyo sida loo gaari karo. waxa ay sharxayaan waa maado 3 marxaladood oo kala dambaysa qofka la marinayo. haddaad contentiskeeda akhrido waxa laga yaabaa adigu inaad qosli lahayd waxa la isu dhigayo wuxuu yahay iyo waxa activity-ga la samaynaya wuxuu yahay. laakiin waxaan uga danleeyaa waqtigoo cidhiidhaya daraaddeed waxa ay danaynayeen waxay ahayd in dadku sacaado helo. macnaheedu waxa weeyaan dhallinyaro 19 jir 18 jir laga laayay farxad iyo sacaado. dabeetana waxaa loo baadi doonayaa koors cilmiyeed jaamacaddu ay dhigto oo ardaygu qaato oo la yidhaahdo sacaadada ha la baro. nabiguna wuxuu leeyay qad aflax man aslam waruziqa kafaafa waqanacahu allahu bima ataa. waxa liibaano guulaystay qofka islaama ee ilaahay kafaaf wax ku filan ku arsaaqay oo ku qancaynta la siiyey. maanta United Nations wallantiisa caafimaadku waxay tilmaamaysaa in every 40 seconds in qof bini aadam istilo. in every 40 seconds in qof bini aadam isagu istilo. waxay leeyihiin 450 milyan oo dadka ka mid ah
ayaa idiraabaad nafsiya casabiya qaba, psychological disorder iyo xanuunna qaba. waxay tilmaamayaan haddana isdilku caalamulislaami buu ugu yar yahay marka loo eego dunida inta kale. waa cajiib, dunidaynu maanta ku noolee caalamulislaami waa ugu problem badan. dagaalada dhulkay ka jiraan waa dunida muslimka, faqrigu dhulka jiro, dowladaha mustabiinta ee dictatorshipka ee dadka laaya ee xidhe ee burburiya waa meesha ka jiro, dadka aan xorriyad haysanin waa meesha ka jiraan, systemska caalamulislaami ka jira waa damasco. waa wixii sababi lahaa in isdilku noqdo maximum. haddii si caadiya loo xisaabiyo waxay in la yidhaahdo inta muslimku dego ayaana dunida ugu dhimasho badan in la yidhaahdaa bay ahayd sida loo jigaayo. haddana waxaa la leeyahay kuwaasaa ugu isdil yar. waay sababtu waa maxay? dadkii faqrigu hayay, ee political instabilitygu hayay, ee dowladaha dictatorkii haysteen, ee dagaaladu ka jireen, inay iyagu haddana noqdaan kuwa u isdilka yar leh marka loo qiimeeyo la barbar dhigo kuwa kale. sababtu waxa weeyaan waxay rumaysan yihiin, sabab kale ma jirto. maanta yurub iyo dunida waxaa la isku dayayaa dadka in la madadaaliyo, dadka in nolosha la ilowsiiyo. bini aadamka bay yidhaahdaan xadaaradda maanta joogtaa laba siyood, mid uun waa in nolosha lagu ilowsiiyaa, dhan waa in dragga lagu fasaxo. oo dee yurub iyo north america iyo dhulkaasi dowladaha iyo dadku waxay isku waafaqeen toddobaadkii dalkoo dhammi laba habeen inuu waalaado, in yarina waddanka ilaaliso. 5 maalmoodna in lama yar qabo la isku waafaqay. waddanku 5 maalmood waa miyarqab iyo shaqo tag, 2 maalmood waa waali iyo matag iyo madax wareer. wasiirkii laga dambeeyey unbaad arkaysaa waana mamnuuc inaad gaadha kaxaysaa. adiga iyo darawalkaaga iyo wixii dhibana waa cabaysaa. waxaad ku qasbantahay markaa inaad tagaasida raacdo. waa iska aamino, tagaasida waa la raaca. wasiir iyo madaxweyne iyo kanoo isku kaajayo meel yaalunbaad arkay, ama kharaansanoo taxi kuma tagay oo taksiilu leeyahay iga maydh bixi kharashkii mataga bixi. waa madaxdii waddanka maamulaysa. dee inagu wada noolaada inagoo miyar qabna waa gara weynaybe iyagu waxay garteen bal labada habeenna in layska wada waalaado, in yarina waddanka ilaaliso oo maamulka iyo xaraasadda waddanka gacanta ku haysto. intaasi habeenkaana waxba cabin, inta kalena inay waalidooda haysato. marka waddannada yurub maanta 3 wax mid uunbaa dhallinyaro lagu hayaa. tanfiiskaasi ah wiigii 2 casha neefta laga sii daayo, markuu soo karaba neefta laga sii daayo, oo 5 kalena dee waad xamaalaysaa ilaa 2 casho waalidu waa lacag bay joogtahay, waa inaad lacagtii keentahay. sakhrada iyo daroogada iyo waxay la cabo ama maahee malaahida haddaad ka baxdo in cayaara lagugu mashquuliyo, ama maahee muusig. ka dhallinyaradu sida loo tanfiisiya ama dadka neefta looga sii daaya politically maanta yurub waa dadka inna cayaar bay ku wareersantahay. manchester baa badisay iyo liverpool baa ka badisa la isku hayaa, oo habeen iyo maalin intaasu ka warramaya ka sheekaynaya inina heblaaya heestiya hebel baa soo baxay, hees kalaa soo baxday, muusig buu ka warramaya. inna waa cabsan tahay, waa qaab dadka neefta looga sii daayo si aanay isu dilin. ilaa hadday miyir qabaana soo wada jeedaan waa khatar miyir qabka badan oo aan dee caqiido wadan. waxaan leenahay dhan labaad haddaba aan ka eegno wakhtiga kooban. markay diin la'aantu dhacdo akhlaaqdu say noqotaa. bini aadamka akhlaaqda ilaahay baa ku abuuro, waa min alfitra horta marka hore. ilxaadka iyo wax kale waxyaabaha qaarkood waa iska yeelyeel badan baa jira, qofku wuxuu iska yeelyeelo oo ismarsiinin. waana jiraan dad shubahaad galo oo khalkhalku ku yimaado. laakiin waxaynu ka warramaynaa falsafa lilxaadiya ee kiisa marka la qaato. morali waa sidee ma la hayaa moralska wax lagu dhiso lagu bineeyo. ilaan akhlaaqdu falsafat alkhayr washar waa inay jirtaa philosophical position ay taagan tahay oo falsafad ka dambaysa.
falsafa ilxaadiya waa falsafa aan rumaysnayn ilaah iyo adduun iyo aakhira iyo wax matoona rumaysnayn. dan maxaa lagu salaynaya? Nietzsche filosofkii waalaaye jarmalka ahaabaa wuxuu yidhi ina alakhlaaqa wاlraxma wاlصabr wاlcaطaa wاlcaطf wاlإxsaan xiilaة ibtadacaha الضucafاء likay yastafiiduu min munjasaati اlaqwiyaaءi wayastacطifuunahum. filosofiyadii waaweynaa laga dambeeyey akhlaaqda iyo naxariista iyo sabirka iyo waxisasiinta iyo isu naxariisadka iyo samafalku waa taagtiig buu yidhi foqoradu ay samaysato dadka wax qahista la rabo in lagu maalo buu yidhi. yani maadaama aanu ilaah iyo aakhiro iyo wax kala rumaysnayn waay dadkan wax loo siinaya. haddaad waxweydo dee dhima buu ku leeyahy maxaad u noolaanaysaa nolosha dheeraad baad ku tahay. walidalik markay falsafadahani kor noqdeen yurub waabay isku dayday dadkan iminka xuquuqda mucawiqiinta hadda waad maqashaan soo maaha dadkan handicapska ah. yurub wakhtiyaa jira baarlamaanadoodu saxeexeen mucawiqiinta in la laayo. wakhtiyaa jira baarlamaanadoodu saxeexeen mucawiqiinta oo dhan in la mudo inay wax dambe inugu dhalin uma taakayna mucawiq dambe. Nietzsche markuu caynkaa lahaa Marxisna cagsigeedu lahaa ina alakhlaaqa xiilatun ibtadacaha alaqwiyaa liyastadcafuu biha ducafaa buu isna lahaa. dhanka kale isna taagan akhlaaqdani waxaana sheegaysaa waa taagtiig buu yidhi ay kuwa xooga badani burjuwaasiyiintu samaysteen si ay foqorada ugu gumaystaan buu leeyahy. Fyodor Dostoyevsky ayaa wuxuu qoray riwaaya uu u bixiyey إida lam yakun ililaahu mawjuuda fakullu shayin mubaax. haddaan ilaah jirin dee wax waliba waa xalaal buu yidhi wax waliba waa bannaan yihi ilaa cidba isqabsan mayseen. cidba mar haddaad cid aad uga dambaysaa haddaanay jirin oo qaanuunka dowladdana dee ka dhuuma un. imka inagu ma waxaynu ka dhuumanaa qaanuunka dowladda si aynu u ilaalino dadka inaynan dilin mise waa shay khuluqiya akhlaaqaynu rumaysannahay? wuxuu u arkayaa kuwadan maanta joogaan soo qabano maalan Lawrence Krauss waa fiisiyaa nadariya mutakhasis ku ah malaaxidadan dhowrka ee hadda aadka u qaylisee buuqda ka mida. ninka buuggan qoray la yidhaahdo wax la'aan baa wax dhasha. markuu caqligu kaa tegayo ninkii dhammaay fiisiiska ahaabaa buug qoray ku leh min alcadam min laa shay shayun min laa shay buug la yidhaahdo qoray cadamkaa wax ka dhasha. kaas iyabaa dood galay nin la yidhaahdo Hamza Trotust miyaa la yidhaha magac adag buu leeyahay. waa nin muslim oo asalkiisu Greek yahay. munaadarada markay socotay doodubu wuxuu weydiiyey hal tuctabar zina almaxaarimi khata'an? dadka maxaarimta ahi inay kala zinaystaan ma dembi baabu ku ma waxunbaa? walaashaa hooyadaa eedadaa kuwa kan ma waxunbaa? markaasu wuxuu ku jawaabay aniga iima caddaa wax gafoo ku jira buu leeyahy. akhlaaqda halkaasay maraysaa markaa miisaankiisa khuluqiga wax ku qiimaynaya waa inaan wax gafi ku jirin. markaasay dadkii ku qosqosleen. John Paul Sartre waa filosofkii wujuudiga ee ugu weynaa nin caan ahaa casriga wuxuu ka mid yahay waa raggii Nobel Prize-ka diiday. Nobel Prize baa la yidhi adabkaagaad ku qaadanaysaa. markaasu wuxuu yidhi aragtiya aan ka soo horjeeda Nobel Prize-keedana ma rabo uu diiday inuu qaato. John Paul Sartre waa falsafa alwujuudiya qowladay uga dambeeyaan ayaa wuxuu leeyahay ninka wujuudigaa buu leeyahay yani falsafa alwujuudiya cidda aaminsan dhib aad u adag bay ku tahay mar hadduu rumaystay inaan ilaahay jirin sida uu ugu hela buu leeyahay imkaaniya lilcuhuuri calaa qiyamin fi caalamin waadix values ama akhlaaq ku salaysan qiimo la garanaya inuu helaa waa dhib buu leeyahay yani asalkaa haddaan duminna buu leeyahay akhlaaqduna waa la dumaysaa.
richard dawkins wahmulilaah buuggan la ydhahaa ninka qoray mulxidka ee caanka bale hadda afhayeenkooda aan ku sheegi karno odaygii john flu dabadii antony flu dabadii ayaa wuxuu leeyahay wuxuu soo qoray twitter uu leeyahay في هذا العالم لا يوجد شر ولا يوجد خير لا يوجد سوى لا مبالاة عمياء وعديمة الرحمة من الصعب جدا الدفاع عن القيم الأخلاقية المطلقة على أرضية أخرى غير الدين الدوانك لها الدين ما شرته بي وأدكتها انتو وحصوا شرحوا لي بي وأدكتها إن أدفال يسك الدفاع دي أخلاق ده أدقوا آن كتير سنين دين بولي دين لآن يا أخلاق إن أتلها شابوا لي وكيلها إلهي ما شره أي هدنا وحلي دين لآن يا أخلاق إن أتلها شوا أدكتها بين الله هذا ما شرتدي دي دين تبين طيب حلا وقبا أنا بين الله هذا ديفيد برلمسكي وأسنا فيلسوف ماثماتيشن ولبا لا أدري أجنوستيك agnosticsku waa laadriyin waa kuwan leh ilaahay inuu jiro iyo inaanu jirin midna aanu garan maayo laakiin hal midun baan aqaanaa buu yidhi waxaan aqaanaa saynis yahan inaanu caddayn karin ilaahay inaanu jirin saynis inaanu taa caddayn karin iyada waan aqaanaa buu yidhi laakiin inuu jiro iyo inaanu jirin midna garan maayo marka qoladan malaaxidadan kale le cilmiga sayniska wax sheegayo ka soo horjeedaa wuxuu leeyahay waa beentii saynis ma caddayn kara masalada tan haddana anugu adilo philosophy aan garanayaa ma jirto ayaa wuxuu sharxay Dostoevsky-gan sheegayay riwaayadiisii buu sharxaya dabeetana wuxuu tilmaamayaa inay qadiyadu tahay haddii ilaahnimada laga tago iyo diinka akhlaaqduna inay raacayso Richard Dawkins baa mar kale la weydiiyo wuxuu soo qoray Twitter buu qoray uu leeyahay al-ijhaad ficl akhlaaqi ومشروع طالما ليس هناك ألم لأن الجنين في بطن أمه هو أقل إنسانية من أي خنزير بالغ به المهين لسور ده وفعل أخلاقيات بولي ووحفي عن وبنان مرهدان إسلام تنرنب أنا أركينين ويبولي المها علوش كتيرا دوفار كينو قورعنا وكلي تابولي يعني بني آدم لماذا قيمة وما هذا هو بالغورن الحاد وحا وقاتين حرية يكني وشيك برلي كل بدن لا يسوت المامي بيتر سانجر وملحد هذا هو فيلسوف الأخلاق في أستراليا بيتر سانجر وملحد أستراليا لكن هو أستاذ الفلسفة الأخلاقية أيام حليها بني آدم كي حولها إن لا يسكت رأي رجي الدمر السنة غضاء أنا قلبه ما أركب لي بني آدم كي حولها إلا يسكت رأي وأين رجي الدمر السنة غضاء واحد قفوا كتير ماشى ما مغضب لي مرة دان ضد كان الله اللي بينين حيوان كان الله اللي بينين أركوس كم مباح لي فحنا قدام لي دين لاني أخلاق لان بين الشهر ينوى قضى الله كي هو روالية بين ليس ينفقين أن يدقنين كاللباد وحن لنا أخلاق الآن بين الشهر وقت قصي قصي مما يينا وحبا وكالات المامو لكن أم بالبلشاهانا هل تصالوا محيو مجتمع محيوت قررنا يقفوا إنه كلغي إلهي يسكعب وده وحترك يقول هذا بيرسونالي لكن بلشاده فايدة ما ولا هذا كبلشاهان كمجتمعهان ها iyadana diin laanta waa khatar haday bulshadu ka bulsha u diin gasho bulshada inay faa'iido tahay waxaad garan kartaa quraanka haddaad akhrido ambiyadii ilaahay soo diray zamanna kala nooca soo diray dhibaatooyin kala nooc inay xallilaan loo soo diray mashaakilaadka u yimaadaan ku wada wada noocaha waxa la yidhi waxa ka bilowdaan tawxiid inaad dadka ugu yeedhaan nabi shucayb tolkii dhibaato dhaqaale iyo boob kale ka jiro loo soo diray نبي لوط أخلاقيات كلا كتيري صالح أما ثمود يا عاد لبتوين كلا هيستي قال أول بمشاكل كده مشاكل كلا وكجد سنة ساعة تاريخ البناء أي شو جديده هدنا إلهي مركو رسول شدري رسول والبوح اللي يدو حد كبل وضعنا ذكر إلهي كحبه وصوت واضح وحي
waxay dhahdaan waa furaha ugu yar ee ugu fudud ee bini aadam lagu rogo waa miiniska haddiiba waddo wax lagu saxa dowladda maraykan saynu ognahay January 16 1919 waxay qaadatay inay dastuurkeeda wax ka bedesho sataqaaniin dastuurada in wax laga bedelaa aad buu adag yahay dowladda inay qawaaniin kala soo saartaa waa fududay laakiin amendmentska waxaa la dhahaa in dastuurka la bedelaa waxay ku xidhaan dowladuhu criteria aad u adag dabeetana dowladda maraykan waxay dooratay inay dastuurka wax ka bedesho federal state-ka dastuurkiisa in la bedelo waxay qaateen go'aan ah amendmentka 18aad in la sameeyo wax ka bedelkii 18aad in laguba sameeyo dastuurka maraykan intii uu jiray in la qaato qodobkaasi waxa uu sheegayaa in khamriga la mamnuuco marka aftaa dadweynaha laga qaado dadweynuhu way u codeeyeen kongresska la mariyay wuu aqbalay senateska la mariyay waa aqbaleen dowladdaas saxeexday wuxuu noqday qadiyad dastuuriya oo lagu daro amendmentka 18aad oo lagu qoro dastuurka dalka maraykan khamrigu inuu mamnuuc yahay waqtiga qaanuunku soo baxaya waa January 16 1919 waxay yidhaahdeen sanadna aan dadka siino oo January 20 prohibitionku ha bilaabmo mamnuuc isku waqtigaasuu bilaabmaya halkan sano dowladdu ha samayso marka wacyigelintii dadka marka wacyigelin baa la bilaabay iskuullada jaamacaadka madaarista meel kasta laga bilaabay waxaa la bilaabay iclaamka iyo jaraa'idka iyo wax qoroo dhan lagu faafiyo waxaa la bilaabay yacni si kastoo dacaayad dowladi ugu samayn karto balaayin min alkurbiyaat baa la qoray maalgelin baa si kastaa loo sameeyey January 20 markii la soo gaaray mamnuuc buu noqday laakiin dadkii waxay bilaabeen waxay u bixiyeen blind pigs الخنازير العمياء خنازير العمياء waxa weeyaan waa warshado cusub oo suuqa madooba oo khamriga sameeyo iibiya dawladdu markaa dagaal bay ku qaaday iyo xarig iyo xabsi iyo waa la waday dawladihii kala dambeeyo dhami go'aanka waxa la yidhi go'aan dastuuriyad ka noqosho male dawladdu waa inay fulisaa waa qasbanta sidii bay lagu waday maraykan dhowr iyo 10 sanadood baa saa loo waday dowladda maraykan oo aan dilku badnayn 200 oo qof baa la dilay sabab ku xidhanta khamriga iyo damiyadiisa 200 qof malaayiin baa la xidhay xabsiga la geeyay intaasoo ijraan baa dhacay markii dambe dowladdu go'aana bay qaadatay in la fasaxo 1933 abril ay haddana dowladdu dib u fadhiisatay dastuurka in wax laga bedelo dib loo bedelo hal qodob bay la soo hadhay federaalku oo ah khamri inta leeg 100 milimitir ka badan haddii jirkaaga laga helo dhiigaaga haddii laga helo inaanay kuu bannaanayn inaad gaari ka haysaa wixii ka soo hadha bay yidhaahdeen stateska u madax bannaan state waliba wuxuu ka yeelaya federal dastuurka laga saaray state waliba waxbuu xaqiiqay adigu khamrigii waa la fasaxay aqoonyahankooda buug qoray baa wuxuu leeyahay nin la yidhaahdo Samuel Mills oo buug qoray la yidhaahdo Learning About Alcohol ayaa wuxuu leeyahay khamriga maxaa loo fasaxay ma cilmi cusub baa laga ogaaday ma aqoon baa soo rodhay ma wanaagiisa la gartay intaa midna ma jirta buu leeyahay aqoontu xumihiisu ma sii kordhisay buu leeyahay inuu balaayo sun la fasaxay yahay ayuu bay sii kordhisay laakiin waa maxay almancu qad fashal buu ku gabagabeeyey mamnuucisti baa fashishay buu yidhi waa loo taagi waayo dee u taag weyna inaga sii daayay noqotay taariikhdan dib idiin celiya 1400 sannadood ka hor waqti aan iclaam jirin oo waxaa soo dhami jirin ummadaan saynis aqoonin oo jahli ku sugnayd oo jaahiliyadii carbeed oo dawlad la'aan ahayd oo waxa ugu badan ee dhibtuba ka haysatay ahayd addabt in la controliba karo wadan fasaxa oon qaanuun ka jirin oo labadii dawladood ee waaweynaa qabsanba kari waayeen oo dad unduula oo isdila oo baadiya iskaga nool aan la xukumin oo khamriguna caadadooda iyo dhaqankooda iyo
raganimo iyo kufaanu yahay gabay carbeed oo macna sameeyo lama tiriyo saddex shay haddii aanay muqadamo u noqon gabay soomaaliga soo hoyaalay lama yidhaahdo dabeetana ma yidhaahda ninka gabaygii xalay saqdii dhexe maraan hurdaa wax igu soo degay saasaynu idhahnaa ama waxaan la mida unbaa muqadamaadka inoo ah carab waxaa muqadamo u ahaan jirtay khamro ammaanteed gabadh sifaynteed iyo faras ammaantii saddexdaasaa u ahaa muqadamada gabay carbeed nin gabayaayo carbeed hadduu rabo inuu gabay isku dayo waa inuu saddexdaas sheegaa ummadday caynkaa u ahayd meelaha khamriga lagu cabo calan baa sudhnaan jiray alghaaya la yidhaahdo iyo xumuhu dhulka ay ka jiraan waxay tilmaami jireen ninka taajir haddaad maqasho inuu yahay ninka khamriga iibiya dadkaba wax kaloo lacag haystaa kaanamaanay jirin ee lacagta ugu badan la ragga helaayihiin ragga khamriga saxaabadii caynkaa ahayd ee dhaqankaa ku noolayd ee saa ayuu nebi maxamed u yimi calayh salaatu wasalaam ilaahay ugama bilaabin khamrigu waa mamnuuc 15 sannadood baa muslim la lahaa khamrigana la cabayay 13 sannadood ee maka la joogay khamrigu xalaal buu ahaa dadku waa cabayay muslimna waa ahaay madiine markii la yimi 2 sannadood oo kale buu iska ahaa xalaal oo kolba in yar laga hadlayay tattakhiduuna minhu sakaran wa risqan xasana mar la tilmaamo oo risqa xasankaa gaar loo saaro isagana gaar loo saaro iyo mar la yidhaahdo walaa taqrabu salaata waantum sukaara waa bal waqtigaa salaadaha tukanaysaan u joojiya oo qofku is yidhahdo maalintii haddaad cabto salaaddaa kaa xumaanay habeenkiisii cab oo ku seexo adigu 15 sannadood ba khamrigu free ahaa laakiin 15 sannadood dadka mabaadi iyo caqaa'id iyo diin baa la barayay wax la barayay naftooda say u controli lahaayeen wax la barayay aakhirada iyo ilaahay rumaysanaayeen wax la barayay qur-aanka makiga oo dhan wuxuu ka warramay inta ugu badan leh ima alcaqiida aw alakhlaaq bas inta ugu badan leh labadaas ka warrama wixii caqaa'id ku saabsan dadku waxay rumaynayaan aakhira iyo janno iyo naar iyo waxa jira adduun iyo suu yahay ama akhlaaqiyaad iyo wax lagu dhaqmayo markuu aayad quraan soo degto la leeyahay maxay fajtanibuuh ka dheeraada la leeyahay nin waliba koobku hayo iska quba odaygii ingiriisi caanka ayaa la odhan jiray Toynbee waa taarikhyahanadii ugu waaweynaa ee casriganba soo mara waa ninka ugu ballaadhan kitaabkan xadaaraadka caalamka ka warramaya waxaan filaya 27 civilization oo dunida ka mida ayuu u taariikhaynayaa bug buu leeyahay la yidhaahdo civilization on trial muxaakamat alxadaaraat wuxuu kaga warramaya civilization on trialku dhibaatooyinka jira marka waxa uu tilmaamay dhibaatada khamriga iyo akhlaaqiyaadka la socda dunidu xal u heli maysa buu leeyahay ilaa bilislaam mooyaane muslimna maaha isagu waa gaal ingiriis oo caalam islaami dhex maray oo taariikhda muslimiinta wax ka qoray oo berigii hore dowladda ingiriis qoladii la taliyaasha iyo mukhaabaraadka iyo beliya baaska u ahaa professorna ahaa markii dambana maraykan qaatay oo maraykan u ahaa khabiirkaasi wuxuu leeyahay dunida reer galbeed xal u heli mayso khamro iyo akhlaaqiyaadka xun ilaa iyo bil islaam mooyaane shuruurtaa waxa qura dunida ka baabi'in karaa buu leeyahay waa islaam waxaan leenahay marka even though nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam agtiisaan technology oo dowlad qaanuun iyo booliis wadataanay oolin jaamacad iyo iskuulle iyo koorsooyin la bixiyaanay oolin haddana bini aadamkii intuu bedelo khamri ka joojiyey dowladda maraykan xoog iyo xoola waxay lahayd intay isku dayday ayay khamriga u taag weyday maanta dunida waxaa soo socda dhowaan in la fasaxo daroogooyinka oo dhan hadda way bilaabantay hadda light drugska waddanno badan baa fasaxay waddannada qaarkoodna xagga caafimaadku bay u fasaxeen waddannada qaarkoodna xoogaa meelo lagu kayfo unbay yidhahdeen ha loo sameeyo halkaa lagu cabo waddannada qaarkoodna quantity-ga la iibsanayo unbay yidhahdeen waa inaanu intaa ka badanin waddannada qaarkood meelo gaar iyo goobo gaaroo dunidu inta isugu timaado intaa haddaad ku jirto waad ku cabbi kartaa haddaad se ka soo baxdo ma cabbi kartid bay u sameeyeen waddannada qaarkood waxay dhaheen wixii aan tijaaro gelin yaan qofka lagu qabanin xogaaga isagoo cabbaya hadduu booliisku ku qabto
oo aanad wax inta ayaa la iska sii daayo laakiin wixii baa mushtaruun hal qabto way soo socotaa imika intaasaa la fasaxay laakiin waxaan filayaa dhowaan in la fasaxi doono ma cilmi lagu ogaadaa loo fasaxayaa maya dowladaha u taag waayo mancigiiba socon waayo idan bini aadamka waxa kantaroolo wuxuu rumaysan yahay qaanuunku ma kantaroolo bini aadamka qaanuunku ma kantaroolo waxay yidhaahdaan wadannada waaweyn waddan ka mid ah ayaa 1978 leebku dumay nalkaa baktiyey 2 saacadood maqnaa goor habeena nalku hadduu duma maxaa dhacaya dee all alarms waa seexanayaan wax waliba waa meel waliba waa free waad goobi kartaa weeyaan magaalada dhammaanteed waa caasimadaha waaweyn dunida mid ka mida waliba caasimadaha baac mushtarka dhammaanteed waxay u kacday nin waliba inuu 2 saacadood ka faa'iidaysto inuu wax boobo bangi dhac dukaan dhac meeshan dhac meel walba boob waxay dhahaan laydhkii wuxuu baxay iyadoo tabaqa alwusta ay ku rarantahay alaabooyinkii waxa injineer iyo dhakhtar sida tv yar iyo alaab ku xambaarsan waayo dadka damayrta akhlaaqda dhaqanka diinta qabta ee maha qaanuunka qaanuunku wuu kaa jiifaayo waxa doonto samee waxba ma tarayso waxaan leenahay ilaahay wuxuu leeyahay afaman yaclamu annama unzila ilayka min rabbika alxaqu kaman huwa acma inama yatadakaru ulul albaab ayuha alaxiba waqtiguna wuu yaryahay dadkuna dee weel maaha wax lagu shubo ee waa la tilmaamaa tilmaamtaan bixinaya waxay tahay oo markaan soo koobo diinta bini aadamku kama maarmo waana sababta ilaahay inoogu soo dejiyey qof ahaan ugama maarantid akhlaaq ahaan ugama maarantid bulsho ahaan ugama maarantid qaanuun ahaan dhaqaale ahaan siyaasa ahaan baababkaa kama warramin laakiin waxaan ka warramoo qura dadnimaduba inay lumayso in xayawaanka aan laga gadisnaanaynin oo akhlaaqiyaadkao dham ay baaba'ayaan hadday diimuhu lumaan waana xagga iminka usii socoto kullamaa dunida diimuhu ama kristan ha noqoto ama yuhuud noqoto ama sal sii cadaadiyo ay sii yaraato fawaaxishta iyo xumaha iyo dhibtaa soo socda oo qaanuunada ku soo biiraya dowladnimada iyo waxa kale kullamaa tadayunka dadku uu batana waxa yaraada akhlaaqiyaadkaa bataa markaa dhaqanka fiican iyo waxa kan baaya bini aadamka qaanuun ma ilaalin karo corruptionka qaanuun quri ma celiyo akhlaaq baa celisa diin baa celisa dhaqan baa waxaasaa celiya saa daraaddeed qofna diin ugama maalaan bulsho ahaanna lama kontrooli karo lama maamuli karo dadka haddii xerada laga sii daayo xerada diimeed hadday ka baxaan lama kontrooli karo si awgeed waxaan leenahay dadkiina aqoon-yahanka ah waa inay diintu muhiimad gaara idin yeelataa oo ay idinku dadka horkac u noqotaa si dadka diintooda iyo islaamnimadooda iyo aakhiradooda loogu hayo waxa ka dambeeya ka dhashaana waa fasaadu waaqaca reer galbeed cid soo dhadhamiso soo aragtoo la noolaatay maaha cid tv ka daawatay ama shaqo yar ka soo qabatay ile waxaan ka warramayaa qof la dhaqmo nolosha la wadaagay nolosha waxaad la wadaagaysaa markaad arday la noqoto la shaqayso dadku waxay cunayaan waxay ka fakarayaan waxay ku sheekaysanayaan siday dunida u arkaan siday wax u arkaan markaad arag waxaan tviyada laga sheegayaa waa brotocollo waa system censorship soo maray oo protocola laakiin bulshada waaqiceeda markaad tagto wax kale aad arkaysaa taa macnaheedu maaha inay wada baabado yurub imika dhimanayso maya technology iyo xoog weli ay ku noolato adigay kugu gumaysatana weli way haysataa oo dhukdhukdaa ku tegi mayso laakiin waxaan ka warramayaa dadnimadii inay sii liidato dunida inta kalena intay dabada ku martaan hadday god ku dhacaan duniduna waa kula dhacaysaa haddaan iyaga iyo dadka kaleba laga badbaadin sala allahu calaa muxamadi wala alihi wasaxbi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin